السلام عليكم تعالى وبركاته daawadayaal waxaan ka hadli doonaa barnaamijkeena galabta xildhibaan ilhaan oo guursatay nin u dhashay dalka Mareykanka xog ayaan idinka haynaa dalka Shiinuhu waxa uu ku dhaleeceeyay dalka Mareykanka inuu u soo waariday xanuunka coronavirus amiirka dalka Dubai waxa lagu eedeeyay inuu doonayay inuu gabadhiisa u guuriyo dhaxal sugaha Sacuudiga Somaliland waxa ay hakisay socdaalkii dadka ka imanaya Ethiopia haddaba daawadayaal qodobadan oo faahfaahsan ayaanu idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena Warkoob haddaba daawadayaal sida uu xaqiijinayo afhayeen u hadlay xildhibaanad ilhaan oo ka tirsan aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Tim Mainet oo ah ninka guursaday ilhaan Umar uu si rasmi ah u qaatay diinta Islaamka taasoo ku shaaciyay BBC London haddaba weegiina dhaafay ayaa ilhaan waxa ay shaacisay arooska ay la gashay Timnet iyadoo birteeda Twitterka ku soo qortay kelmad u dhignayd sida tan waxaanu lamaane ku ahayn aniga iyo Tim siyaasadda balse hadda waxa aanu lamaane ku nahay nolosha alxamdulillah haddaba xidhiidhka ka dhaxeeya labadan qof oo in muddo ah la hadalhayay ayaa hadda waxa uu u muuqda mid rumoobay kadib markii ay ku dhawaaqday inay isguursan doonaan Tim Mainet oo ah nin u ololeeya arrimaha siyaasadda gaar ahaan ololaha doorashooyinka ilhaan waxa ay kala tageen wiil Soomaali ah shay saddex caruur daawade Tim Mainet laftiisu waxa uu ahaa nin xaasla balse ay hadda kala tageen si ay guri u yeelanayaan isaga iyo ilhaan daawadayaal qodobkeena labaad ku soo dhawaada amiirka dalka Imaarada Dubai ayaa waxa ay ku eedeysay xaaskiisii oo lagu magacaabo Haya bin Hussein oo dacwad ka furatay dalka UK ayaa waxay ku eedeysay ninkeeda in uu doonayay in uu gabadhiisa oo da'deedu tahay 12 jir lagu magacaabo Jalila inuu u guuriyo dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salman taasoo ah sababta keentay inay ka soo cararto oo ay u dalbato furiin ay u kala tagaan iyada iyo amiirka dalka Dubai qodobkeena saddexaad dalka Shiinaha waxa uu ku eedeeyay dowladda Mareykanka inay iyadu soo waariday xanuunka COVID-19 taasoo keentay magaalada Ohio haddaba dhaleecayntan oo aan ahayn mid cadeyn wadata ayaa ay kaga jawaabaysay dowladda Shiinuhu eedeyntii weekii hore ay u soo jeedisay dowladda Mareykanka taasoo tiri China waxa ay ku guuldareysatay xakamaynta cudurkan haddaba si uu uga jawaabo oo uga falceliyo hadalka ka soo yeedhay dalka Mareykanka ayuu ku eedeeyay inay iyagu keeneen xanuunkan dalka China qodobkeena afraad daawadayaal wuxuu noqon doonaa Somaliland waxa ay hakisay oo ay joojisay socdaalkii iyada iyo dalka Ethiopia sababta oo lagu sheegay in kiiskii ugu horeeyay xanuunka coronavirus laga soo sheegay dalka Ethiopia haddaba si loo samato bixiyo shacab weynaha Somaliland ayaa waxa warmurtiyeedkan lagu yiri waxaan hakinay si ku meel gaar ah una joojinay fiisayaasha dalku galka ee dadka ka imanaya dalka Ethiopia taasoo ah talaabo lagu sugayo badqabka laguna ilaalinayo caafimaadka shacabka dalka Somaliland haddaba daawadayaal intaan barnaamij lamid ah ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.